أيسين دقيسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضارية مرور وسلامتين إن قبل كستراك وقبل وين وقبل بلارن وقبل كا أصلاً نقصو تشدنو وقبل سلاكين لا يرحمته waxaan jeclahay intaasuna insha Allah inay naga dhamaan doonto waxayse ku dhamaanaysaa mushkiladayna haysata waxa weeye qofku cudurkii buu doonayaa inuu daweeyo isagoo cudurkiiba garanay inuu daweelo deedeeya marka qofka kana ahayso haddii duur ka daweeso muu dawoobaya waxa dawadeenu taayirtu Ilaahay inuu noqono Ilaahay haddaynu noqono oo inuu caloosha waxa ku jira ka saaro oo inuu aamino in wax qadar leeyahay jiro وأنا واحد بريء وأنا العلم واحد كسجن إيه أرميه نلو فوقنا هذا وصل لكن أنت أنا كحنا هو البحلية هذا وحنا صيرنا سا ضاقب النسوجنا في قبال النوقضية وحاطين نخش كأنه واللي جاني يلا المشكلة تكبح منه إلهي آمنا إلهي هدونا آمنه أو نسكحنا أو نلاهي ونقولنا أو نسود سامحنا أو نمر ولا تشسنه وحولوا نفض ضانيا horumarkan iyo fiiga iyo wada iyo waxaynu ka sheekaynayno waxa ka horeeya amniga iman hadaynu hello wax walba weyn heleena labadana ku dadaalaa anagu culayskayga waxaan saarayaa labada inaynu amni hello iimaan wanaagsan hello waxa la yiraahdaa waa lagu hadii goor waxa laga soo dardaarmay waa lagu kala fiqi reerbaa kula fiqi cid baa sidan kooran dawladdu way iska hawl yartay ninka aniga qof ila xantow waxaad ku tala gashaa inaan ku oran iyo kaalo ku cadee way iska hawlirta waa wax iska dhamaanaya haygana baqina nin jeeb qaadana meehi miisaankaygana waa aragtaa inta Allahu akbar aragna waa nahay feeraana uqdad kama qabo feer walba waa la sirayaa waa la fariisanayaa midaan saloo u xidhnaanaya ma jiriyo cid kastoo ku dulman cid kastoo wax tirsanayso gobolkan ku dulmana waan dhageysanayaa haddii ay daayad uqdadu iska qabtana waa laga saaraya haddii cid dulmantay jirana waa laga qabanaya dhibaatada ugu weyn ee idin haysata ee miirada idin aasani waa magtan lama bixiyo annagu markaanu qof kala dilo 7 cishaanu qabanna magtiisa 7 cisha hadii lagu keenay way odayadana xidhnaa xoolahaanu ka soo qabanaa si laakiin dawaaba la yaab 7 sanadood baan wax isku leeyahay waa miina aasan waxanu inanka abiila dil magnaa laga siinni markuu kor muxuu yeelayaa waa dhibaatada ugu weyn adoo xoolo waynu haysanaa sanaag gobolka ugu qaliisan buu ahaa Soomaaliland adeeran magta iska bixino anagu cuqaalay dhageysta intaas oo koofiyoodna way islaak fadhidaan waxaan leedin magama kala qaadano dawaan istilow bisaas maqsan la isugu soo oodin baati waa ha horeysan talaabada nuqaadina amniga ku xidhani waa magtaas dad badan oo ka soo ballamay anigu imikaba gawaadhidiina iyo dukaamadiina iyo xoolihiina iyo cidii maglugeysho inta waan ka xidhaya iyo odayaashiinaba ilaa inta magta bixinaysa ku kala gaa war joog amsiya هذا سويسان هذا سو محل دوريسا هذا دوريسان إن دورته مقصد كبح صوتي كبح المس فلا اللي هذي ما تكلوا السيمة اللي لا تكته إذا هاي محروب يقصين حوله ورساقي حوله ورساقي تنادلوا كوينين haddii ayaga ka xalateen ka hodateen maxaa ilaahay ka sugaysan bal isweydiiyo nafta adigu leedahay oo kale leeyahay xoolahan marka adigu ka hodato adna ilaahay wax ka doonayso ilaahay cadaaladiisa kuma jirto taas maalinta inagu soo cadaalad farno aynu xoolaheena cadaalad farro aynu danteena garanno
حقوق يقول يقف يسوق حوالي كوت يسوق كويس حقوق جينية حلو يسلم وكف لانسا تدكويس دحمرك حوله وصعدك أنت أصلا نوقو بركة إسرائيل ما أنت نقولون إن بمليوشوا حوله نوقو هذي مايان أنا سكسي دون مركز ده أنا سكدقنو ونبورة نقولون وقت اللي تابع ولا نجاره وإنه حوله فرق قادمه وحيي لسان إلهي كيابا حوالها أفصح الدوق جود أرساق ذو ذبح كعدتين إلهي إسلام أرساق ذو تين ذو كحرية تين الراب كيف تأكل حرني إلهي وكا عارفين صومال لأن أولاً ما أنت الراب لهم بك شفته قبل كسنة سنة لكن عرض باوفر هذا إن إسلام باتري بالي إنك بوديها لين أنت إذا كمل الوين وأكرنيا ورير سناجو عقلك الصومال لأن إنك اللي دكتوم يجي عواد طير هذين بركة هين وين دون كذا إن شاء الله والنصر قدر بس قاعد وحد عيو دعي قفي كل من يراه وتقرأنا وكل انتي وارنتين كلمة أوصلنا أوصلنا وأول عليهن وين السوق بنكرها أنا وحوش شغلنا خير بالك مركب خير قلبات كنا الذي يربى مكحمنا وحنا عنا قوياش وحنا يلعبان مركب إذا كأبيه للدلو ويوانيا ما حي تابتان إن سمريين بان قوة هينا إلى هاي وكبركين دونا هذا نكود عيننا لكن خير بالك وحنا وحي يلعبان إن يهو أكتدا الميتين أكتدا كيف جالس السوق تانو أرسله إلى هذا عروتنا تان كدينه وحلا يلعب ماشي كسره آخرها نقدم بيسا وحي نوا أيامه ولا إن حسابنا يا قعنت أولا أنا وحبك كدلين أفكار هذا قريب قاعدته لم يدوم باتك واحد لي هذا ترى صوتي أقول ساعة هكذا بيستكتو لم يدوم بات هذا كدلي قايم ماتين إلى أن نقولنا إلى خير كائن وافتشي لحوش دقيقة بيكون تتا سيبين كثير دونا واحد نكون بدلنا ونفعلن دونا إن شاء الله إلى يسوع كان بركيه أنا جاي سود دعاء وقدين كبان هاي إن إلى هاي يقص كين صو أسطره قفكم مسؤولية اللي صو صارع كحما قبل كرم إلى هاي هذا كوا أسطره وكوا أسطره دي هاي ده كل من وكل ما إلهي أنا كل ما يقدر كيدنا عدالة فلا كي لا يسوكين بركيو كي لا يسوكين سخرو إلهي هيجيله وأنت ذالي أنت تاجي وحي قدر كي لا يكون ما دواه الكيسة إلى ذلك وحي دولة النجاح لنا أنا أقول مدحوينها هيصوم عاو هذا أدبر السجون صاحب قران وحي نجاح ما وحيدين بلنقاوية إن نعيدنا عمرين في سنة هذا إلنا waxa loo baahan yahay in isbedel muujino in nabadgelyada isbedelka kale oo iska caadi waa horto in nabadda isbedelka muujino in xilshimaha sheegisaan isbedelka muujino waxaan leeyahay hadal weyn oo dambeyn doona gaar baynu soo arki doonaa waynu ka sheekaysan doonaa mushkiladaasi oo hoose jira khayr baa idin rajeenaya shaqo wanaagsan in gudoomiyaha tagayna waxaan leenahay ilaahay meel roon ha mariyo bilowaadan baynu nahay waynu isku qaldanaa waxba isagu kan ka dhacdo kala laakiin inuu xawasha soo waayna maaha ninkan gudoomiyaha aniga soo reefalay waa in la xaaran waa reeb caasara wuxuu doono iska sheegaa in laakiin maanta waxaan leenahay saamaxnaakum maladuu naga tagayo waynu si saamaxayna wanaag baynu ku sabootayna khayr baynu rajaynaynaa in insha Allah meeshan meel ka roon oo ka sii dalaxsan Allah siiyo waxay nala joogo wasiirkii dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir boos barigaan waan garaadaystay kaaligi sabaxaaya mire ayaa shiyaalka halkan soo qaado kaalinba ma lahayn foostooyin bal ku soo qaadi jir ilaa bariga reer aargaabo qoysaskaaga barto kamid aha boos mire maanta ma hadii ay soo kaayis hadalano aargaabo anigu tirsanay isna uu la joogo isagoo wasiira oo waxa ilaahay loogu mahadiyaa in waxaan leeyahay reer sanaag waa salaamantiin ku soo dhaw wasiir